aynu ku bilaabayno galabta waxay tahay saa'ilkani waxa uu yiri cabidda sigaarka la cabaa ma jabisa soomka. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سيجارك waxa loo yaqaano iyo waxyaabaha la midkaas buuriga oo kale oo wax qofka bani aadamka caafimaadkiisa dhibaato badan u leh. Culamaa islaamna waxay yiraahdeen cabitaankiisu ma banaana sidiisaba. والنبي عليه الصلاة والسلام وحيري سيد ابن ماجه وريه بإسناد حسن لا ضرر ولا ضرار وحلالية وحي دبلي ما بنانا ودينة الإسلام كما وقلا الساقونا إنو دبلي هاي ولا يسكوها فقصية هاي دافنا أنو اللهين هبيراته حق الصوم كمركا لقاها لايو قفكي si camdiga u cabba qiiqiisaasi uu galo jawfkiisa uu dhaadhaco gudihiisa madaahibta afartii waxay qabaan inuu soonkiisu jabayo. qolooyin markaa wadaadadan dambe mucaasiriinta ah oo Masar iyo meelaha ka dhawaaqay ayaa masaladaasi buuq iyo muran ka furay laakiin ma ahaan jirin masalo hadal uu ka taagan yahay. waayo qofka sigaarka cabaya wixii ay naftiisu jecelayd ilaahay daraadii ugama tegin ee uu cuni lahaa ama uu cabbi lahaa. qofka sigaarka cabayaana waxbuu cunay ama waxbuu cabbay oo innagan af Soomaaliga ku leh hebel sigaar ku cabaa hebel sigaar buu cabaya wixii cabis baa lagu sheegay waa shurbi. af carabigana yashrabu dukhaan iyo laa yashrabu dukhaan macnaheedu yahay sigaarku cabaya sigaarka ma cabo sidaas ay yiraahdaan. waxay la cabaana hadduu doonayo sun lagu dhimanayaba ha noqdee soomka waa jabiyaa oo inuu wax nafci loo waxtar leh oo qofka markaa tamar u yeelaya ama jirkiisa wuxuu taraya inuu noqdaa shardi maaha. mar hadduu yahay wuxuu wax la cuno amaba se la cabo soomka waa burinaya. sigaarkuna mawaad buu ka kooban yahay waxyaabo la taaban karo xajmi ama jurmi leh oo qofka sababadiisa gaadhaya cunihiisa ka dhaadhacaya oo gudaha hore u dhaadhacaya marka qof cabay buu noqonayaa. kumuu sifoobin sifada ilaahay subxaana wa tacaala dadka soomana waa abaal marinaya uu ku sifeeyey markuu yidhi yadacu طacaama washaraaba washahwatahu min ajli wuu cuniyo wuxuu cabayey iyo shahwadiisii buu daraaddeed uga tegay buuhi ilaahay qofka soomani. marka wixii uu cabayey qofkaasi ilaahay daraaddii ugama tegin marka horeba isagoo aan banaanayn. haddii qofku isagoo sooman uu cabana wuxuu noqonayaa qof waxaan xalaal ahayn cabay isla markaana soomkiisii ku jabiyo laga dembi galay buu noqonaya wallahu aclam.